odaygii waayeelka waxa uu u sheegay Sofia isagoo gacanta ku haya in ay meel u bixi doonaan, laakiinse waxba uma uusan sheegin. waxa ayna weydiisay meesha ay tagi doonaan, laakiinse isagu waa uu ku aamusnaa. Sofia waxay ahayd mid ka codsanaysa inuu geeyo goobta riyooyinka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteeda qiimaha badan. maanta waxaan sharaxi doonaa film aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo The BFG. waxa uu soo baxay 2016 inta aanan bilaabin muuqaalka qaybtiisa koobaad. waxaan kaa codsanaynaa kanaalka haddii aad ku cusub tahay inaad ku soo biirto leegtana aad saarto si uu muuqaalku u socdo. tani waa Sofia waxay ku nooshahay goobta agoomaha lagu barbaariyo maxaa yeelay waalidiintoodii ayaa dhintay. iyadoo waxay ahayd habeenkii mid aan seexanin, waxay iska wareegi jirtay goobta agoomaha lagu barbaariyo iyadoo isla waqtigaasna hurdo la'aan ay ku dhacday. waa ay cabsan jirtay, habeenka mugdigiisuna waa u sii dheeraa. habeenada ka mida waxay maqashay qadh aad u badan. waxaa jiray oday carruurta afduubta kaasoo cuni jiray. isla waqtigaas iyadu daaqadda ayay furtay, waxayna maqashay qadh aad u badan. waqtigaas Sofia waxay ahayd mid dibadda u soo baxda, waxayna aragtay bisado daadiya weelka qashinka lagu guro. isla waqtigaasna weelka qashinka lagu guro waxaa toosisay qacan aad u weyn, taas oo aad la yaabayso markaad aragto. waqtigaas waxaa goobta ka soo baxay nin aad u weyn. Sofia waxay ahayd mid indhaha ku haysa, waxayna la argagaxday muuqaalka ninka intuu leeyahay weynigiisa. Sofia aad ayay u cabsanaysay, waxaana isku dayaysay inay baxsato. waxay u soo carartay dhanka iyo qolkeegii iyadoo isla waqtigaas ku dedego, laakiinse nasiib darro ninkii gacanta ayuu ku dhigay. ninku waxa uu isku dayay inuu la baxsado, waqtigaasna waxa uu isku qarnayay uu watay. dadku ma aysan arag, laakiinse isagu waa uu la soo baxsaday. waxa uu soo galay duni kaloo aad uga duwan midii hore. halkani waxay u muuqataa inuu keligii ku nool yahay odaygan aadka u weyn. Sofia markuu keenay guriga waxay aragtay alaabta gurigu inay tahay mid aad u waaweyn. wax kastoo goobtan yaala aad ayay u waaweyn yihiin, iyaduna waa ay la yaabtay. Sofia waxay isku dayaysaa inay baxsato, laakiinse waxa uu sheegayaa inaysan ka baxsan karin. iyadoo aad ay u cabsanaysay waqtigaas, waxayna madaxa suratay weel meesha yaalay, laakiinse isagu weel ayuu ku riday iyadii oo dhanba. weelka uu wax ku karsanayay ayay ku dhex jirtay. waxay u sheegtay inay cabsanayso inta ay weelkan ku dhex jirto. waqtigaas waxay maqashay kuwo aad u qaylinaya qosol fara badan. waxayna weydiisay inay jiraan kuwo kale oo halkan ku nool. waxa uu sheegay inay ku nool yihiin halkan qaar kale oo aad u waaweyn, kuwaasoo isaga ka sii sarreeya. waxa uu sheegay kuwa halkan ku nool inaysan cafnin bini'aadamka, qofka ay qabtaan hore ayay ka cunaan. iyadoo aad ayay u sii naxday, cabsiduna ku sii farabadatay. waxay weydiisay, oo adigu miyaad cuni doontaa mise waa si kaydayn doontaa? isagu waxa uu sheegay inuuna cuni doonin iyada maxaa yeelay waxa uu ku dhahay anigu ma cuno bini'aadamka, laakiinse waxaan cunaa khudaarta. anigu waxaan ahay mid naxariis badan, kumana cuni doono cabsida badan iska saar ayuu ku dhahay. waxa kale uu u sheegay kuwa halkan ku nool ee waaweyn inay cunaan dadka, laakiinse aysan cunin khudaarta. Sofia waxay weydiisay sababta uu u keenay halkan haddii uusan iyada cunaynin. isagu waxa uu ku dhahay adigu aniga ayaad aragtay, wax walbana waxaad u sheegaysaa bini'aadamka, sidaasna waxaa khatar ku gelaysa naftayda iyo asxaabtayda waaweyn ee halkan ku nool. maxaa yeelay ma doonin inaan halaag sabab u noqdo. adiga inta noloshaada ka harsan halkan ayaad igula noolaanaysaa. Sofia waxay ku dhahday maya, taasi ma dhacaysa maxaa yeelay anigu waan kaa baxsan doonaa. waxa uu ku dhahay adigu ma jirto wadda aad ku baxsataa, naftaadana halaag ha u sababin. haddii aad baxsatana kuwo kaleoo bannaanka jooga ayaa ku cuni doona. waxaynu aragnaa odayga waayeelka oo hawshiisa iska wataa. waqtigaasna Sofia ayuu soo qaaday meel sare ayuu saaray. waxa uu u sheegay in ay iska nasato maadaama ay maanta dhan daalnayd. iyadu waxay ahayd mid aanan seexan marka horeba, waxayna ku dhahday anigu ma seexanayo. waxay aragtay odaygii waayeelka ahaayoo haysta quraarad aad u iftiimaysa ama dhalo si aad u garanaysaba. Sofia waxay ahayd gabadh aad u qalqaaliya, waxayna weydiisay waxyaabaha ku jira quraaradan aadka u iftiimaysa. waxa uu sheegay quraaradan in ay ku jiraan riyooyin fara badan, laakiinse iyadoo ka xaraabaysanaysa waxay ku dhahday aniga waxba igama khuseeyaan riyooyinka maxaa yeelay maba seexdaba habeenkii. iyadu waxay ahayd habeenkii mid aanan seexan. Sofia waxay ahayd mid aanan seexan markii horeba. odaygii waxau bilaabay inuu akhriyo buuggii ay Sofia haysay, isagoo waqtigaas akhrinayay sheekooyin aad u qurux badan oo ku qornaa halkaas. waxau isticmaalayay qalabka soo dhoweynta. isla waqtigaasna Sofia waa ay seexatay.
quraaradii ayaa daboolka laga qaaday waxaana ka soo baxay waxyaabo fara badan kuwaasoo riyooyin ahaa. Sofia si keliisa ayay u soo kacday waxayna aragtay odaygii waayeelkaayoo hurda. iyadoo ka faa'iidaysanaysa fursaddaas waxay isku dayday in ay baxsato dibadda ayayna u soo baxday. iyadoo cararaysa waxaa qabtay nin aad u weyn kaasoo ka weyn midkii hore ay la joogtay. gacanta ayuu u dhigtay iyaduna way argagaxday, cabsiduna way ka farabaatay, ma jirto meel ay u baxsataa. gacanta ayuu ku soo qabtay waxa uuna ku riday afkiisa, iyaduna waxay gashay ninkii aadka u weynaa calooshiisa. laakiinse waxaasoo dhan asxaabi waxay ahaayeen riyo ay ku jirtay. waa ay ka soo kacday waxayna aragtay meeshii la saaray inay weli saaran tahay, waxa ay ku jirtana riyo oo keliya ay ahayd. Sofia marka ay ka soo kacday hurdadii waxa ay weydiisay ninkii waayeelka ahaa inuu isagoo sabab ahaa inay iyadu seexato, ilaa ma aysan ahayn markii hore mid seexata. waxay ku dhahday riyadan adiga ayaa ka dambeeyey sow maaha, laakiinse waxaad i tusay riyo aad u naxdin badan. isagu waxa uu u sheegay inuu saas sameeyey inuu ku qasbanaa, maxaa yeelay waxau ku dhahay waxaan rabay inaan ku tuso waxyaabaha dibadda ka jira si aadan noloshaada u halaagin, taasina waxay ku noqon doontaa cashar. waxau ku dhahay dibadda waxaa jooga kuwa aad u waaweyn, haddii aad baxsan lahaydna saas oo kale ayay ku samayn lahaayeen. kuwaasi waa kuwa aniga aad iga waaweyn marka loo eego. anigu waxaan ahay oday aad u da'a, laakiinse kuwaasi cid iska celin kartaa ma jirto. odayga waayeelkii wakhtigaas waxuu ahaa mid u sharaxaya waxyaabaha dhici kara, waxa uuna u diyaarinayay Sofia quraac. waxaa goobtii soo galay nin aad u weyn, waxa uuna la hadlayay odaygii waayeelkaa. ninkan markaad aragto ninkii hore waxa uu noqonayaa ilmo yaroo carruura. arkuwana waaweynaa qoomkani ma qoomkii caad bay ilmaadereyihiin, intaanu gelinay way dhaaftay. ninkii weynaaya goobta soo galay waxau bilaabay inuu u hanjabo ninkii kale. waxau ku lahaa adigu waxaad noqotay nin waayeela, xitaa waxba ma qabsan kartid. wakhtigaasna Sofia waxay ahayd mid dhuumata. ninkani weyne waxa uu oranayay inuu qof bini'aadam meesha joogo. wakhtigaasna waa uu boodboodayay isagoo hanjabaad dhagaha ka jaray ninkii hore goobta joogay. Sofia waxay isku qarisay wakhtigaas khudaarta dhexdeeda. isla wakhtigaasna ninkii waxau bilaabay khudaartii inuu gacantiisa ku qaato. Sofiana way ku jirtaa khudaartii hadda la soco. ninkii weynaa waxa uu isku dayay inuu cuno khudaartii isagoo aan weligii cuno khudaar. waxa uu ka oranayay ur bani'aadam, laakiinse ninkii kale waxa uu ku dhahay adigu ma aadan ahayn mid khudaarta cuna, maxaa kaa khaldan maanta ood la cunaysa. laakiinse waxa uu u sheegay maanta inay wax kasta sidii hore ka duwan yihiin. khudaartiina waa uu isku tuuray wakhtigaas, halkaasna waxaa ku badbaaday Sofia. ninkii weynaa waa uu ka baxay goobtii. Sofiana wakhtigaas way ka soo baxday meesha ay isku qarinaysay. odaygii waayeelka waxa uu u sheegay Sofia isagoo gacanta ku haya in ay meel u bixi doonaan, laakiinse waxba uma uusan sheegin. waxa ayna weydiisay meesha ay tegi doonaan, laakiinse isagu waa uu ku aamusnaa. Sofia waxay ahayd mid ka codsanaysa inuu geeyo goobta riyooyinka. odayga waayeelkii ma uusan doonayn inay raacdo, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo fara badan oo cabsiya. waxa uuna rabay inuusan halaagin nolosha inanta yar ee miskiinta. waxaa bannaanka jiifa kuwa aad u waaweyn, haddii ay arkaanna inanta yar ma cafin doonaan. laakiinse kama dambaystii waa uu ka oggolaaday isagoo wakhtigaas soo kaxeeyey. waxa uu saaray geed aad u dheer. waxa uu ku dhahay halkan ayaad ku nasan doontaa, laakiinse beri subaxa ayaa halkan ka sii socon doonaa. aroortii markaa la gaadhay waxa uu tusay sida ay ku waaweyn bannaanka u jiifaan. waxa uu ku dhahay halkan khatar aad u badan ayaa ka jirta. isagu wakhtigaas waxa uu isku dayay inuu ka dulta tallaabsado isaga oo Sofiana gacanta ku wada, laakiinse mid aad u weyn ayaa lugta qabtay. waxa uuna kaxiyay dhammaan asxaabtii waaweynada halkan jiiftay. waxa uuna weydiinayay wakhtigan meesha uu u socdo. dhammaan waxay ku qaylinayeen anagu dooni mayno wakhtigan inaad baxdo. odaygii waxa uu u sheegayaa inuu hawshiisa wato. iyagu waxay ku dhaheen anagu dooni mayno inaad bannaanka u baxdo, maxaa yeelay bani'aadamka haddii halkan ay ogaadaan waxayna u sheegi doonaan ba iyo balanbal aad u daran. maskiinka wakhtigaas lugta ayay hayeen, waxayna u tuureen kii ugu weynaa goobta. Sofia wakhtigaas way carartay waxayna isku qarinaysay gaadhi meesha yaallay. odaygii waayeelka hadiyada oo naftu hayso waxa uu u sheegay inay fiiriyaan cirka. isla wakhtigaasna waxay arkeen daruuro aad u waaweyn oo soo socda. roob ayaa isla wakhtigaas bilowday. nimankani waxay ka cabsadeen biyaha. iyagu wakhtigaas waa ay kala yaaceen, waxayna ku dhuumanayeen goobahooga. iyaga oo fursadda ka faa'iidaysanaya Sofia iyo odaygii waayeelka waa ay ka soo baxsadeen goobtii. Sofia odaygii waayeelka iyagoo baxsanaya waxay isku dayeen inay fuulaan buuraha. waxay gaadheen meel aad u fog. wakhtigaasna waxay noqotay habeen. Sofia waxay ku dhahday odaygii waayeelka
xidigahani waxay u muuqdaan kuwa aad u qurux badan, aad ayaana uga helay. laakiinse odaygii waayeelka waxa uu u sheegay halkan inay wax kasta ka heli karaan, xitaa laxanka dadka dunida hoose jooga. yacni waxa uu ku dhahay waxaan ka wadaa waxaan maqli karnaa codadka quraanjada, sidoo kale waxaan maqli karnaa codad kasta oo ka yeeriya xagga hoose ee dunida. waxaa kaloo uu u sheegay in ay maqli karaan codadka cayayaanka aadka u yaryar, xitaa waxaa kaloo uu u sheegay inuu maqli karo geedaha heesaha laxankooga. arbeena sofia waxay ku dhahday ma aanan fahmin waxaad ka hadlayso. odaygii waayeelka waxaa ku dhahay gabadhaydii wax kastii haddii aad aaminto wax kasta waad maqlaysaa. wakhtigaas waxay ku soo baxeen geed aad u weyn. geedka waxaa hoostiisa ka qodan ceel aad u ballaaran ama haro si aad u fahmaysaba. waxa uu isku tuuray odaygii waayeelkaha ceelkii. sofiyana qacanta ayuu qabtay ceelka ayayna kula dhaceen. ceelka cidhifkiisa kale ayay tegeen. halkanna waa goobta riyooyinka lagu sameeyo. asxaabtada qiimaha badan halkaas ayaan ku daynayaa qaybta koowaad ee filimka. haddii aad ka heshay muuqaalka leeg saar si aan u soo badino muuqaalada noocani oo kalea. muuqaalka oo leeg fara badan helaa taas macnaheedu waxay tahay in aan si degdega u soo gelin qaybta labaad.